قرطو وقلب يا رايو قالوا العرف يا رايو قالوا العرف يا رايو ما ذي قايل يا رايو دردي هيشل يا دردي هيشل يا دردي هيشل يا دكتك هاقلك يا كدوكايو يا كدواندو كدواندو يا رايو ما ذي قايل يا رايو ما ذي قايل يا رايو أفردوه يا رايو أفردوه يا رايو ديلي وين به يا رايو ديلي وين به يا رايو ليس دوادك يا رايو أي تردوان تاي daawade waxaad ka taqaanaa maqaayad uusan ka kaftami karin oo kaftan uga furnayn iyo hadal toona inkii aan boqol geela lahayn halkan waa magaalada Qabri Dahare ee dowlad deegaanka Soomaalida ee dalka Itoobiya waxa ku taala maqaayad ay ku sheekaystaan shaahana ka cabaan ragga geeloodu u haray boqolka halaad maqaayadan waxa inta badan fariista ragga haysta kalimada geela ah iyadoo ay dhif tahay in nin geelan lahayn uu fariisto haddii uu fariistana waxa uu ka noqonayaa aamusane martiya xaaji cismaan sheekh maxamed oo ah mid ka mid ah dadka ku xiran maqaayadan oo ka warramay xilliga ay soo bilaabatay arrintu waxa uu sheegay waxay ku samaysantay in horta geeleydu isugu timaado halkan oo la arko geeleyda oo wada fadhidana dadku markay arkaan ay isku weyneynayaan kii lahaa boqolka halaad 200 300 400 ee halaad waxaa loo bixiyay maqaaxida oo ay sidaa kula baxday maqaaxidii geeleyda ومعسكاقي ومنطرها وكم مغدى وملقى ماري ومسمالبو وكوكم مغياي ويروه اللي inta badan waxaa laga wada hadlaa arrimaha geel oo aad loo jecel yahay sida baadidiisa oo la isku warsado sanadka uu dhalayo iyo wixii la mid ah sida uu sheegay xaaji Cismaan mararka qaar waxa madasha geeleyda isugu timaada ku dhaxla inaan geel balahayn iyadoo la iska wareysanayo arrimaha geela kaasoo sida uu sheegay in hadalkiisa dhagtalo loo siin loona arko nin iska hadlay يا رايو ساكهيرتا يا رايو ساكهيرتا يا رايو هوبك لو دغاي يا رايو وهداولي يا رايو سوهريدي يا رايو سوهريدي يا رايو هذا الله هيا 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 يا رايو ما دي يا رايو صد الحفلي يا رايو صد الحفلي يا رايو لفلمي هده يا رايو فارو مايستو يا رايو فارو مايستو يا رايو فديغاتك يا رايو ما دي ninkaan geela lahayn ee u soo shaah doonta maqaayadaas ayaan wax hadal u furnayn intuu halka ku sugan yahay waxay u badan tahay inuu iska aamuso oo dhagta raareeyo dhageystanay sheekooyinka ay isku jiibinayaan geeleyda halkan ku sugan si ay wararka geela aad isugu raaciyaan sheekooyinka xasuusta leh ee geela arrimaha la xiriira geela meelaha daaqsin kale baadidiisa iyo arrimaha kale ee geeleydu inta badan ay isku yaqaanaan ayaa ka mid ah halkan sheekooyinka ka socda maqaayadan waxa magaceedu yahay gabagabo waxa caan ka ah magaalada Jigjiga waxa ku ganacsata haweeney lagu magacaabo Aamine Cabdillaahi Axmed oo ay ku xiran yihiin macaamiil badan oo geeleeya hadda ma aha geel jire ee waa geeley waa mulkiilayaasha geela mar wax laga weydiiyay bal cidda ay macaamiisheedu u badan yihiin waxa ay sheegtay oo ay xustay Aamine Cabdillaahi Axmed in dadka boqolka halaad iyo ka badan leh ay tahay cidda customerka ama macaamiisha oo ah ay yimaada goobteedan waana dadka meesha loo yaqaano ee looga dambeeyo hadalkooda ay tiri الله وصف لها قلوب هلا يا
سيدي الله أنا قروي 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 الله وقل فل الله وقل هذي قريتي الله قادي كله الله أرجوك قوي ياكو ولاقو aamina oo la weydiiyey in macaamiil badan oo shaha ka iibsan lahaa oo aan geel leeyahayn halkaas ay ku weyso waxa ay sheegtay in dakhli ka badan kuwa geeleyda uu ka soo galo oo u badan dadka maqaaxideeda inta badan camira waxyaabaha goobteedan ay uga duwan tahay meelaha kale ee magaalada waxaa ka mid ah in ninka geelkiisu uu ka badan yahay halkadin uu ragga kale shaha ka bixiyo ninka uu ka geel badan yahay waa laga gartaa marka uu meesha soo galo isaga ayaa ragga kale shaha ka bixiya waa ninka inta badan waqti badan la geliyo oo sheekadiisa la dhageysto oday Axmed Sahal waa mid ka mid ah ragga geeloodu boqorka u dhaafay ee ku xiran goobtan gabagabo ee biibitada shaha laga cabo ama maqaaxida hadba sida daawad u taqaano waxa uu sheegay in geela uu arko waxa ugu wanaagsan ee la dhaqdo 84 guo uu jiro waxa uu sheegay in maqaaxida gabagabo la yiraahdo ka hor la bilaabay الله قربسي قالنكي دغي قول الله سي قال الله سي قل ما ويداي قار هدان ضيو قار لما ضيو قرب بولي قول هلولي قاشرالي looda dhiiqda laga maalayiyo dhayda iyo xoorku dhudhunkay biyaha kula jirtiyo dhabarka weeyaana mar haday abaaruhu dhacaan dhimata geesleeye ragga laxaa sii dhowrayow dhaqasha waageen geelninkii dhaqay guul allow sii gabagabo ma fariisto nin geeliisu 100 hayaad ka yaryahay ragga geela leh bay gaar u tahay deegaankanna waa mid sidiisaba aad loogu yaqaano dhaqashada geela ayuu yiri oday Axmed Sahal qorxi ayaa la yiraahdaa halkan geela ayaa qiimo weyn ku leh ragga geela tabcada ayaa maqaaxida fadhigeeda lahaan jiray kolka ninka geelihii sheekaynayo kan geelaan lahayn isagoo shiba ayuu iska dhex fadhiyaa waa makhraati dhageysanaya wararka geelaydu isugu sheekaynayso gabyaa Soomaaliyeed ayaa maruu ka hadlayay qiimaha uu geel ugu fadhiyo waxa uu yiri ragga laxaha dhowrayo dhaqasho waa geel أحمد سهل waxa uu qabaa in ninka aan geel lahayn ama hadalba u furnayn geelaygu 100 halaad waa ka badan yahay ninka aan geel lahayn isaga aba iska gaabsanaya hadii nin geel lihiin nin aan lahayn ma baaha inay wada hadlaan ayuu Axmed Sahal rumaysan yahay marday Axmed la weydiiyay waxay ku kala duwan yihiin ninka dameer kale iyo kan 100ka geela leh hadii mid kasta loo barakeeyay hantidiisa waxa uu ku jawaabay ninka dameerka ilaahay ma barakayn
gaajaa dilaysa ninka geela leehse waa barakaysan yahay boqol halaadni la weeye si kastaba ha ahaatee soomaalida ayaa bulsho aad u tixgelisa kuna faanta dhaqashada geela iyadoo ku halqabsata mursida ah inaan geel lahayn aakhiro lama ammaanayn waana mid ka mid ah gabayada tudcu meerisiya oo gabayada soomaalida laga eedheexdo geela ayaa qiimo weyn ugu fadhiya soomaalida oo marka caanaha iyo hilibkiisa laga yimaado ay ku qabaan faa'iidooyin badan waxay ku bixiyaan magta yaradka iyo xaalka deegaanka soomaalida ee ismaamulka soomaalida Itoobiyana waa mid ka mid ah goobaha weli ka sheegan dhaqashada geela oo ay loo tixgeliyo diyaarayo maadigaay diyaarayo sodon la haflay diyaarayo sodon la haflay diyaarayo la falmihida diyaarayo faarumaysto diyaarayo faarumaysto diyaarayo fadhigaadke 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 diyaarayo maadigaayir diyaarayo maadigaayir diyaarayo sida culimada diyaarayo looma cabanine diyaarayo caraduubiyo diyaarayo cara lagu helay diyaarayo cara lagu helay diyaarayo maadigaayir diyaarayo maadigaayir diyaarayo xalan cilka diyaarayo lacaweeyon diyaarayo lacidiya faray diyaarayo lacidiya faray lacidiya faray lacidiya faray lacidiya faray diyaarayo maadigaayir diyaarayo maadigaayir diyaarayo dayralkaagiyo dayralkaagiyo diyaarayo darin guursaday diyaarayo wala dabacay diyaarayo daanku dheera diyaarayo daanku dheera 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 iyo madigayir iyo madigayir iyo anda sabway diyaarayo anda sabway diyaarayo wansidalahay diyaarayo soo sidaysu diyaarayo soo sidaysu 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 diyaarayo sodoniyad qad diyaarayo sodoniyad qad diyaarayo solinad mari diyaarayo solaad mari diyaarayo sabiya qac diyaarayo sabiya qac diyaarayo sabiya qac diyaarayo sakuya qac sabiya qac sabiya qac sabiya qac